mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. kulanka ayaa looga arinsanayay kaalinta bulshadu ay ka qaadan karto la shaqeynta laamaha ammaanka si loo xaqiijiyo ammaanka caasimadda Soomaaliya Muqdisho. wariyahayaga Nuur Siciid Tahliil ayaa tafaasiish warkan inoo haya. kulankan uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa bulshada rayidka iyo laamaha amniga, waxaana kulankan ciwaan looga dhigay haqarsan dhagarqabayaasha al-shabaab kuna wargeli maamulka iyo ciidamada amniga cid kasta oo aad ugu shakiso ka mid ahaanshaha argixisada, iyadoo goobta uu kulanka ka dhacayay ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Wadajir. Sheekh Cabdullaahi Axmed Guruun oo ka mid ah culmowdiinka Soomaaliyeed ee ka qaybgalayay kulankani ayaa ka sheekeeyay waxa ay diinta ka qabto in bulshada ay ka qayb qaataan sugidda amniga. marka qodax iyo dhagax yar oo jidka laga wareejiyo hadii halkaas ila dadkii dhibayay maxaad u maleynay midka dadka dilay maxaad u maleynay midka dadka qarxinay hadii aad sheegto oo sida gacmaha uu ku galo dadka waxaad helaysaa yani ajirkaas faraha badan oo la sheegay maxaa muslinaad badbaadisay badbaado muslim ayaa la ka shaqeysay. gudoomiyaha ururka haweenka degmada Wadajir Aamina Cabdulle Maxamed oo kulan ka hadashay ayaa la ilmeysay mar ay ka hadlaysay dhibaatada ay kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ku hayso bulshada Soomaaliyeed. dad dhalinyaro ah oo jaamiciin ah oo ilmihii degmada kor u siday ah ayaa ay daafka geliyeen. marka waxay ku sarmay wiil aan taagnaa oo weysada aan ka hormaray yiri oo weysa qaadanay Soomaalina oo aan saan u dul taagan oo caagi ka sugaayo markay bir waaba ayaa ku dhacday uu hore isku ma nuuxsan ma dhaqdhaqaaqin waa liicay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa tilmaamtay in argixisada ay cadow ku yihiin nolosha iyo horumarka shacabka reer Muqdisho. dadka dareenkiya ka maqan marka haday culimada xaq ka baqato oo imaamada ay cabsadaan oo aan bulshada la wacyi gelinin wallahi inay noo imaanayaan guriyaha hal nooga soo doonayaan ummadan waxa la isaga qaban karaa Wadajir iyo aqli madaysan. gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Umar Cabdulle Xasan ayaa tilmaamay in midnimo looga gudbi karo falalka amni darada la xiriira ee ka dhaca degmada. waxaan rabnaa dadka shacabka ah iyo maamulkeena inaan wada wadaagno xogtaas dhibaatada nagu haysa sida la idin sheegay wuxuu ahaa booliska la xiriiri kartaan annaga maamulkeena la soo xiriiri kartaan. Nuur Siciid Tahliil, Radio TV qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.